siyaasadeedka horseed ee uu garwadeenka ka yahay Cabdilaahi Dirawal ayaa maanta si rasmi ah waxa uu magaalada Hargeysa gaar ahaan garoonka dhalinta ee caasimadda waxa uu si rasmi ah uga daafuray kulanka isdhexgalka dhalinyarada ee kubadda cagta taasoo maanta labadii kooxeed ee ugu horeeyay ay ku loolamayeen maanta ciyaartii ugu horeysay ee si rasmi ah loogu daafuro magaalada Hargeysa labadan kooxood oo iyagu wacdara ka dhigay garoonkaasi ayaa waxaa halkaasi bilowgii hore ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka horseed waxayna tibaaxeen ahmiyadda ciyaaruhu u leeyihiin dhismaha qaranka iyo isdhexgalka dhalinyarada iyo sidii geediga horumarku uu hore uga sii socon lahaa dalka isla markaasina urur siyaasadeedka horseed oo isagu uu ka mid yahay urur siyaasadeedada danaynaya in isdhexgalka dhalinyaradu uu noqdo barnaamijka koowaad isla markaasina sidii dhalinyaradu ay uga maarmi lahaayeen qabyaaladda iyo sidoo kale balwadaha ay kala dagaalami doonaan isla markaasina ciyaaraha noocan oo kale ah ay bilow uga noqon doonto Hargeysa isla markaasina gobolada kale ee dalka ay ka qaban doonaan kulamo ciyaareed oo noocan ah. Bismillahir Rahmaanir Rahiim dhamaantiin waan salaamayaa marka hore horta waxaan idinka raali gelinayaa kulankan furitaanka tartankan oo ku talagalkiisu ah inuu yimaado gudoomiye marka gudoomiye waxa uu yeeshay horta waan idinka raali gelinayaa insha Allah waxaan idin ballan qaadayaa in gabagabada tartankan haddii ay dhacdo inuu goobjoog ka noqdo farxad iyo qiimo ayay noo tahdaanunahay urur siyaasadeedka horseed inaannu qabanno tartankan oonu dhigno koob sidaynu ognahay mujtamaceena Somaliland bulshada qaybta ugu badan waa dhalinyarada 70% waana kuwa loo baahan yahay in wax loo qabto waa kuwa loo baahan yahay inay isdhex galaan waa kuwa loo baahan yahay dhibta ugu badan imika inaysta qabyaaladda in lagaga saaro waana ka mid koobka iyo isdhexgalka iyo ciyaaruhu inay dhaliyaan dad isku fikira isu yimaada meel wax ka wada arka dan wadaaga insha Allah bidilaahi alkariim waxaanu ka filaynaa cid alla liicdii siyaasadda ku jirta inay noqdaan dad bulshada ururiya oo isu keena oo kordhiya laakiin aanay noqonin dad bulshada kala kaxeeya dib ku dhex abuura kala daadiya marlabaad waxaan idinku hambaliyeenayaa ama aad iyo aad ugu faraxsanahay kulankan koobkiisa aanu nagu dhignaanu qabannay oo aan idin leeyahay waa bilow labada kooxood ku kulmiya kubadina aan idin laaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu isugu nimid maxaadeen ciyaar ama wareeg aynu ugu talagalnay maxaadeen inuu ka qabsamo degmada Ibrahim Koodbuur khaasatan xaafadda Jijgeer garoonkayga 13 May waxa maxay suurto galiyay oo suuqan keenay ururka horseed waxaynu maanta furi doonaa ama furi doonaa ciyaartii ugu horeysay wareegaasi Khalid Fantastic Television Ariel Hargeysa.